Somaliland maalmihii u dambeeyay waxaa ka socday koobka ugu weyn ee ciyaaraha kubadda cagta marka loo eego tartamada kooxaha kaas oo lagu magacaabo Somaliland Champions ama horyaalka horyaalada. Waa markii labaad ee tartankan la ciyaaro, waa markii koowaad ee caasimadda lagu kulmayo, waana markii ugu horeysay ee xilli habeenimo la ciyaarayo ciyaaraha kubadda cagta ee dalka. Wejiga hore ee ciyaarahan oo la bilaabay 16 Diseembar ee sanadkii galbad waxaa isku haleelay 18 kooxood, balse wejiga labaad waxaa soo gaaray 12 funaanadood oo kaliya. 6 kooxood ayaa tabartooda oo lagu daray nasiibkoodu waxa uu diiday inay u soo gudbaan qaybta labaad ee tartanka. Sanadkan ciyaaruhu may wanaajin kooxaha ka yimid gobolada ka durugsan caasimadda. Koobkan waxaa marxaladda guruubyada kaga baxay kooxihii Fooxa iyo Maydiga iyo kuwii caasimadda labaad haddaan si fudud u sheegnana kuwii ka yimid gobolada Sanaag iyo Togdheer. Dhanka kale go'aamadii kooxaha xidiga cirka iyo asluubta Sool ayaa koobka ka cirib tiray dhammaan kooxihii ka soo tallaabay dowga buurta Sheekh. Waxaana soo ilaatay rajadii koobkan ee geeleyda iyo fardafuulka. Wejiga koobaad waxaa la ciyaaray 18 kulan. Ciyaarahaas waxaa la iska dhaliyay 56 gool. Kulankii goolasha ugu badan la iska dhaliyay waxa uu ahaa kulankii dhex maray kooxaha asluubta Sool iyo Maaliyadda Boorama, waxaana la iska dhaliyay 7 gool. Sidoo kale kulanka kaliya ayaan wax gool ah la iska dhalin wejigii koobaad ee tartanka. Waxa uu ahaa hirdankii dhex maray Maaliyadda Hargeysa iyo ganacsiga Boorama, kuwaas oo ku kala baxay natiijo gool la'aan ah. Dhanka kale Gaashaan Hargeysa ayaa noqotay kooxda goolasha ugu badan ka dhalisay marxaladii bilowga oo 7 jeer ayay shabaga taabteen 2 kulan oo ay ciyaareen. Halka Maaliyadda Berbera ay iyaduna tahay kooxda goolasha ugu yar ka dhalisay ciyaarahan, waxaana la guriga noqdeen 1 gool oo kaliya. Isla Maaliyadda Berbera ayaa ahayd kooxda aan wax dhibic ah ka helin tartanka, iyadoo labadii kulanba laga adkaaday. Guud ahaan koobkan ayaa galay wejiga labaad xilli aan wax go'aan ah laga soo saarin. Kooxihii iska diiday inay sii joogaan garoonka caasimadda ee Hargeysa Stadium. Maxamed Bashiir Cali Xaafidka